السلام عليكم داوديال مركز الدنيا ku joogtaan ba ku soo dhawaada mid kamid ah qodobadii waxaas badnaa maalmahan ka jiray dunida maanta waxaan mowduuceena ku soo qaadan doonaa waraysigan oo aan la yeelan doono mid kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ku saabsan yahay cudurka dhawaanahan dunida gilgilay viruska corona kaas oo saameyn badan ku yeeshay dhammaan wadamadii dunida qaasatan dhaqaalihii iyo socodkii dadka hadaba cudurkan la yiraahdo corona waxaan ku waraysan doonaa mid kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed saan hore u soo sheegnayba oo lagu magacaabo Khalid Abdixakiin Axmed Khalid Wadani oo jooga wadanka Suudaan Khalid ku soo dhaweey barnaamijkan Khalid adiga codkaada sare u qaadaya maxaad u sheegi kartaa cudurkan corona waa maxay cudurkan waad ku mahadsantahay walaal Maxamuud fursadaad i siisay wax badan ayaa laga sheegay ama laga sheekay cudurka corona oo ruuxay adduunka wuxuu saameyn ku yeeshay cudurkan caafimaadka siyaasadda dhaqaalaha dunida dad badan waxay rumaysan yihiin in noocyada viruska ee sababa fiditaanka iyo cudurka hadda jira ee corona uusan ka imaan aadanaha laakiin uu ka yimid xayawaanada maanta adduunka jira marka waa cudur khatar ku ah nafaf badan oo bini'aadamka wuxuuna galaaftay adduunka ilaa ku dhawaad 100 wadan marka waa cudur saameyntiisa leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah in ummadda dunida muslimka ka badbaadiyo qaasatan ummadda Soomaaliyeed waa gartay waxa la leeyahay saameyn ayuu yeeshay ama uu ku yeelanayo dunida saameyntiisa maxaa kamid ah dunida uu ku yeelanayo maxaa arintaas maxaa ka muuqda saameynta uu yeelanayo waa sax saameyntiisa wata cudurkan wuxuu saameeyay nolosha wadamada hodanka ah iyo kuwa saboolka ah maadaama dalal badan oo dunidu ay curyaamiyeen uu curyaamiyay dhaqdhaqaaqooda ama curyaamiyeen dhaqdhaqaaqoodii oo ay xireen xuduudahooda isla markaana ay hoos u dhigeen ama ay curyaamiyeen dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo gudaha iyo dibadba xilli ay iskuulada iyo jaamacadaha iyo dhammaanba socodkii nolosha ay albaabadu xireen marka dabcan waa dareemi karnaa saameyn weyn ayuu ku yeeshay dawladaha dunida taasoo go'aan ay ka soo saareen in isku socodkii xitaa diyaaradihii la joojiyay marka waa cudur saameyn xoogan oo baan wato marka waan aragnaa maalmahan waxa socdo watas cudurkan waxa la leeyahay markaas xaafadda aad maqasho ama dadka waxa qora waxay leeyihiin cudurkan ama waxa la leeyahay dagaalka biologiga arintaas maxay tahay maxaa loola jeedaa dagaal baa ka dhaxeeya ayaa la leeyahay Mareykanka iyo Ruushka waxaas la isla dhaxmaray maxaa noogu sheegi kartaa dabcan corona waa qayb kamid ah tuunka ay qabto dalka Shiinaha taasoo ay sida ay ku eedeysay Washington ay u aragto Shiinaha inay tahay weerar biology ah cudurka bakteeriyada waa cudur biology ah si loogu hortago siyaasadda Shiinaha iyadoo aan loo adeegsan walaal hubka casriga dabcan khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu ahaa mid soo jireen ah maantana kama qarsoona dunida wuxuu ku bilaabmay dagaal ganacsi oo joogto ah hadda ah aniga qalid ahaan waxaan aaminsanahay inuu yahay dagaal biology ah iyadoo la adeegsanayo hubka casriga sida hubka yani maanta ku faanayaan dawladaha waaweyn marka waxa leedahay arintani waa loo qaadan karaa dagaal dhanka dhaqaalaha miyaad leedahay dabcan maanta cidna kama qarsoona dunida aan joogno in 2020ka labada quwadood ee caalamka maanta hogaaminayso Mareykanka iyo Chinaha ay ku xardamayaan midkiisa kale in dunida xukumaan sidaan aaminsanahay nidaamka dunida cusub ee maanta uu hogaaminayo oo dalka Mareykanka muddo hogaaminayo muddo laga joogo 1991 ilaa hadda waa dareemi karnaa dagaal baan ayaa jiro oo labada quwadood ka jiro Chinaha iyo Mareykanka marka waa laga yaabaa inay tahay dagaal biology ah oo dalka Mareykanka uu adeegsanayo Chinaha waxa noo sheegtaa saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya markii adduunka laga soo tago Soomaaliyeena cudurkan
gudihii joogta maxaa nooga sheegi kartaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba wuxuu ku yeelan karo wallahi walaal dabcan waa dareemi karnaa Soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa marka hore in ummadda Soomaaliyeed maanta ilaahay inuu ka badbaadiyo horta uma diyaarsanin haddii loo fiiriyo dhanka caafimaadka ahaan waayo dalka muddo 30 sano ku dhawaada dal waxaa ahayn dal burbursan oo ka maqan yani maanta saaxada siyaasadda haddii ay noqoto dhanka bulsho ahaan uma yani wacyi ahaan uma qabna dadka Soomaaliyeed dad wacyi leh ma ahan runtii midda saddexaadna waa dhaqaalaheenu aad u yar يعني ما أنت أنكو في إن نرجع للعذر كاس مرك إن شاء الله تبارك وتعالى وحنرجعني إنه إلهي نجبت باديو أنا جماعة هني أمد الإسلام كدنيا ما أنت جوتو إنه إلهي كقبته ثامن حوجنا يو وتعذر كان وعذر سيدا كده واجسه هذا عفمت كدنيا أدون كدبليو جه لو يقانو إنه يهي عذر حوجن ويعني ثامن حوجن وتو إن شاء الله تبارك وتعالى وحنرجعني إلهي ومد الإسلام كأنه كبر باديو أبدا ما سنزل خالد